kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka isha wararka TV waana 5 bisha November sanadka 2020 qodobada aan idiin soo gudbi doonana waxaa kamid ah yaa ku horeeya doorashada dalka Mareykanka tiirinta oo meel xasaasi ah maraysa wararkii ugu dambeeyay arrimahaas la xiriira ayaan idiin soo gudbi doonaa ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal haddaba tiro ahaan imise ayay ka kooban yihiin cabdi xaashina waa uu ka hor yimid gudigaasi sababtu maxay tahay warka ayaad ku daawa doontaan galmudugna waxa ay qaaday tallaabo ay kaga jawaabayso weerarkii lagu qaaday madaxweyne qoorqoor haddaba tallaabadaasi maxay tahay warka ayaad ku daawa doontaan sidoo kalena warkeena waxaad ku daawa doontaan Uhuru Kenyatta oo dalab cusub u gudbinaya dowladda federaalka xilli ay muuqato in laga adkaaday intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka janalka isha wararka TV fadlan haddii aad nagu cusubtaan ugu soo bir oo subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 saacan halkan ku baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka sheer gareeya laagtiin oo inoo muhiim daawadayaal aatanna ku soo dhawaado warkii oo faahfaahsan ugu horeynta markaan eegna xaaladda la xiriirta doorashada dalka Mareykanka oo meel xasaasi ah maraysa tirinta codadka wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay tilmaamayaan in Joe Biden oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha uu hogaaminayo tirinta codadka oo wali soconaysa warbaahinta ayaa warinaysa in tirintu ay wali si habsami leh u socoto isla markaasna labada musharax si aad ah iskugu dhow yihiin inkastoo Joe Biden uu hogaaminayo tirinta codadka xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaana si weyn u loolamaya gaar ahaan labada musharax ee Trump iyo Biden oo isku hardinaya doorashada dalkaas labada musharax oo si ballaaran olole u sameeyeen ayaana midkii guuleysto waxa uu Mareykanka ku hogaami doonaa 4 sano ee soo socota sidoo kale waxa codadkooda doorashada dhiibtay in ka badan 160 milyan oo qof oo ku sugan gobolada dalkaasi tartanka waxa wali hogaaminaya Biden oo guulo ka soo hoyay gobolo aan laga filaynin oo loo xaglinaya dhinaca Trump ama jamhuuriga waxaana warbaahintu saadaalinaysa inuu guuleysan karo Biden inkastoo wali ay socoto tiranta codadka qofka guuleysanaya ayaa waxa laga doonayaa inuu helo codad dhan 270 Trump ayaana ku doodayay in uu guul weyn ka gaaray doorashada isagoo ku eedeeyay xisbiga dimuqraadiga inay geysteen wax isdabamarin sida uu ku shaaciyay Twitterkiisa qareenka Trump ayaana dhankiisa isaguna xusay inay reer aakhiraad ay codeeyeen isla markaasna ay ogaan doonaan tirada reer aakhiraadka codeeyay si kastaba isha ayaa lagu hayaa natiijada doorashada Mareykanka iyo waxa ka soo bixi doona geesta kalena arrimaha Soomaaliya markaan uu soo laabanay ra'iisul wasaare Roble waxa uu magacaabay gudiyada xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka heer federaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta shaaciyay liiska gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal oo dhameystir u ah heshiisyadii doorashooyinka Dhuusamareeb iyo Muqdisho gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka 2020 ilaa 2021 uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble ayaana ka kooban tiro ahaan 22 halka xubnaha gudiga doorashooyinka heer federaal ee doorashooyinka 2020 ilaa 2021 kana ay ka kooban yihiin tiro ahaan 25 xubnood si kastaba gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa si adag kaga hor yimid magacaabida gudiga doorashooyinka warqad ka soo baxday xafiiska Cabdi Xaashi ayaa waxa uu ku shaaciyay sababta uu ku diiday dhismaha gudigaasi isagoo sheegay in laga tago xubnaha uu gudbiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si loogu daro xubnaha gudiga doorashooyinka xubnahaas oo 4 ka koobnaa ayuu sheegay inay ahaayeen gudigii Somaliland kuma tagin lahaa doorashada yeeshe uu ka tagay ra'iisul wasaaraha sidoo kale wuxuu tilmaamay in xubnaha gudiga lagu dhawaaqay aysan matali karin Somaliland ama gobolada waqooyi oo isagu uu shaaciyay in aan lagala tashan Cabdi Xaashi ayaana qoraal ogeysiina u diray madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka si kastaba arrinkan ayaa imaanaysa xilli maalmihii ugu dambeeyay Cabdi Xaashi madaxweyne Farmaajo ay si aad iskugu hardinayeen cidda hogaamin doonta arrimaha gobolada waqooyi gaar ahaan soo xulista xildhibaanada dhankaasi ka soo galaya dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo xildhibaanada gobolada waqooyi ee haatan xilalka haya ay ka hor yimaadeen qaabka oo wax u wada Cabdi Xaashi Cabdullaahi arrimaha la xiriira gudiyada la magacaabo ayaan ku gudu jirnay dhinaca kalena koonfur galbeed iyaduna waxa ay ku dhawaaqday gudiga doorashada warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayuu ku magacaabay xubnaha koonfur galbeed u matalaya gudiga doorashada Cabdicasiis Laftagareen ayaana tirada xubnaha uu ku dhawaaqay waxay ahaayeen 8 xubnood kuwaas oo lagu dari doono 3 xubnood oo ka imaanaya dhanka federaalka Soomaaliya
dhanka kalena galmudug ayaa qaaday tallaabo jawaab u ah weerarkii lagu qaaday madaxweyne Qoorqoor. ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab waxa ay ka bilaabeen deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb waxaana la arkayay ciidamo wata gaadiidka gaashaaman oo u ruqaansada dhanka bari ee magaalada dhuusamareeb gaar ahaan deegaano hoostaga magaaladaas oo la sheegay inay howlgallo kala duwan ay ka wadaan ciidamadan ayaana ka hortagaya in mar kale weerar lagu qaado garoonka Ogaas Nuur ee magaalada dhuusamareeb oo dhowaantan xilli uu ka ambabaxayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug la weeraray diyaaradii uu raacay. si kastaba galmudug ayaa ilaa iminka faahfaahin badan ka bixin arrimaha ka socda qeyba ka mid ah agaaraha magaalada dhuusamareeb. ugu dambeyntiina Uhuru Kenyatta ayaa dalab cusub u gudbinaya dowladda federaalka xilli ee muuqato in laga adkaaday. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay xubno guddi ah oo golaha wasiirada xukuumadda Kenya ka kooban kuwaas oo kala ah wasiirada arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, dhaqaalaha iyo gaashaandhigga waxaana gudiyadan ay xal waara ka keeni doonaan arrimaha la xiriira xayiraadda ee dowladda federaalka ku soo rogtay dhanka qaadka. wasiirka ganacsiga Kenya ayaa la kulmay xubnaha ganacsatada qaadka ee dalka Kenya isagoo ka dhageystay cabashooyinkooda. si kastaba guddigan ayaa la filayaa inay la kulmaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya si xal looga gaaro arrimaha xayiraadda ee qaadka ee dowladda federaalka ku soo rogtay dalka Kenya. ganacsatada dalka Kenya ayaa iyagu dhinacooda sheegay in maalin walba ay khasaaraan lacag dhan 5 bilyan oo lacagta Kenya. si kastaba lama oga dalabyada ee dowladda Kenya hordhigi doonto dowladda federaalka inay aqbali doonto dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. guud ahaan daawadayaal wanaagay inta warkii aad kala socoteen janalka Isha Wararka TV fadlan haddii aanagu cusubtaan ugu soo biir oo subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 saac halkan ku baahin aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalka share gareeya laakiin waa inoo muhiim daawadayaal waana ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Isha Wararka TV.